وفتي كسعود إمارات كعربتا أو هركعيو سفير كسومالي لان وفدي إمارات كعربتا باشا عويل oo ay weeliyaan wasiirka beeraha Soomaaliland wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee waaxda dawladaha hoose barasaabka gobolka Gabiley maayarka caasimadda gobolka Gabiley gudoomiyaha degmada Togwa Jaale taliyaha qaybta Gabiley ayaa soo kormeeray deegaanada koonfurta magaalada Gabiley oo ay abaara ka dhaceen halkaas oo ay dadka deegaanadaasi ay warbixin kaga dhageysteen waxa weey adduunyadu de waxa weeyeen maanta tani oo kale waxaan hore u aragnay تقول إن هذه الجفاف أول مرة يصير فيه. أول مرة. أي نعم. يعني مثلها ما شاف. مثلها ما شاف. فهاي إنه أرجعني معها. تبدأ نوع تهرا. إلهي ندسدي وإلهي ينبأنا وحنا هيا. قالت كل شيء من عند الله خير. إلهي ينبأ كفر شذكرة. والفرج من الله. يا. waxa kaloo halkaasi ka hadlay maayarka caasimadda gobolka Gabiley barasaabka gobolka safiirka Soomaaliland u fadhiyay Imaaraadka Carabta runtii kormeer indhayn oo ay ugu furgalayeen xaaladda abaareed baaxadeedu intay leeg tahay ay ku soo mareen gobolka aan rajaynaa insha Allah ta'ala in ay wixii dadka tari karaan ay taraan insha Allah diyaar u yihiin aad iyo aad baan waftiga u soo dhaweynayo wasiirada iyo madaxda ka socotay safiirka cusub maadaama wixii ay la soo bixi jireen aanu jirin oo sanadka wax soo go'ayaan jirin wixii hore kayd u ahaana ay xoolaha iyo iyagu wadaageen runtii wixii awoodooda keeni karaan insha Allah oo naga fadhinaa waxaan jecelahay inaan u mahad celino xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gargaarkii u horeeyay aan iyadu cidna la sugin waxaan u diray 800 oo qoys ayaan raashin u geynay ay cunaan laakiin dadka deegaanka degan ka badan inta waxa ilaa 20 kun oo qoys bay noqonayaan haddii aan ka sii badnayn 20 kun oo qoys 900 qoys ayaan inagu imika ka gaarnay haddaan dawladanahay weli dawladdu kama istaagin inay wax siiso haddana cid alle cidii caawimada wax ka geysanaysa diyaar baan u nahay waan soo dhaweynaynaa walaalaha Imaaraadka waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo alle soo dhawaado dalkiini way kanay waa dalkiini labaad ay joogtaan waxaad tiin dadkan tirsanayno Soomaaliland ahaan dad islaam ah oo tirsanayno sharaf weyn maanta runtii noo tahay inaan halkan gobolka Gabiley oo mas'uuliyiintiisa noo kacay maanta anagoo hogaaminayna waftigii Khalifa Foundation shalay dalka yimid safarkana ujeedadiisa sidii aan shalay sheegnay wuxuu ahaa inay u kuurgalaan oo ay ka jawaabaan xaaladii abaareed ee dalka ka dhacday maanta waxay runtii mareen gobolka qaybo ka mid ah oo mas'uuliyiinta mayorka iyo barasaabku na tuseen waxay runtii darki kartaa dhibaatada weyn ee dadka iyo dalka soo wajahday hadday noqoto xaggii xoolaha iyo hadday noqoto xaggii beeraha deegaanka duburta ayaa ka mid ah deegaanada ay abaartu ka dhacday iyadoo aad arkayso mararka qaarkood xoolihii oo cunaya geedka tiinka loo yaqaano Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley